madaxweynaha maamul goboleedka waqooyi bari ayaa waxa uu sheegay inuu dhowaan kula kulmayo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag ugaaska guud ama sultaanka guud ee beesha warsangeli ee degta gobolkaasi Sanaag. macluumaadka ku qotoma kulankooda halka uu ka dhacayo macluumaad guud oo ku qotoma arrimahaas ayaanu idin la wadaagi doonaa. waxyaabaha kale aan idin soo baahin doono waxaa ka mid noqonaya سعيد عبد الله دني أي عيدمدي ugu badnaa waxa uu ku daabulaya magaalada Dhaxar sidoo kale waxa la tilmaamayaa in durbaba dhaqdhaqaaqyo xoogan ay halkaas ka bilaabeen dadka deegaanka oo aad u hubaysan ayaa la tilmaamayaa iyaguna oo qaab beelad u abaabulan inay ka soo dhaqaaqeen hadaftimo isla markaana ay ku soo jeedaan badan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ciidan ayaa halkaas laga dareemaya waxaana maagala in dhinacyadu ay soo taraan soo daawada haday tahay markaaga ku gooreysay ayaa soo boqoto halkan subscribe noo saar noon la garay muuqaalkan wad ku maasan tahay soo boqoshada aanu ku horumarno Sultan Saciid sultaanka guud ee beesha warsangeli ayaa waxa uu casuumaad ka helay madaxweynaha maamulka waqooyi bari waxaana la tilmaamayaa inay ku kulmayaan qaybo ka mid ah gobolka Sanaag wararku waxa ay tilmaamayaan in durbaba laga dareemayo deegaanka shaxda oo ah goob istiraatiiji ah isla markaana xad wadaaga ay yihiin gobolada Highland iyo sidoo kale Sanaag ayaa la tilmaamayaa hadda iyo sidoo kale Sanaag aan dhihine deegaanka shaxda oo ku yaala xadka ay wadaagaan Highland iyo sidoo kale Sool ayaa la tilmaamayaa in ay ku kulmayaan dhinacyadu halkaasna ay fariisan doonaan waxaa la tilmaamayaa isla markaana wararka la helayo ay sheegayaan in dhinacyadu ay halkaasi ku kulmayaan qorshaha ugu muhiimsan ee la gorfeynaya ayaa ah qaabka lagu wajahayo dagaal ka dhan ah Somaliland iyo sidoo kale Puntland kaasi oo lagu xureynayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag oo ay hadda ku sugan yihiin ciidamo ka amar qaata Somaliland iyo sidoo kale Puntland wararku waxa ay tilmaamayaan isla markaana ay sheegayaan in guud ahaanba qorshahaasi la guda galay isla markaana Sultan Saciid oo ah sultaanka guud ee beesha warsangeli uu halkaas tagayo sidoo kale firdhiyana uu halkaas tagayo Google xarka shirkaasi ayaa la tilmaamayaa in deegaanka shaxda laga dareemayo waxa ugu horeyntii halkaas tagaya saraakiil ciidan iyo sidoo kale waxaa la geynayaa hubka noocyadiisa kala duwan si loo guda galo qorshaha guud ee markaasi loo yagleelayo madal markaasi abuuri karta jabi nowdoon oo markaasi dhinacyadu ay ku kalsoon yihiin wararku waxa ay tilmaamayaan isla markaana ay sheegayaan in dhinaca iyo hadaftimo ay ka imanayaan iyaguna bah dhaqan iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo beesha warsangeli oo halkaas tagaya kuwaasi oo ilaalinaya amniga guud ee sultaanka waxa sidoo kale la tilmaamayaa in Puntland iyadoo ay qorsheynayso in fadhigaasi ay ka hortagto isla markaana abaabul ciidan ay deegaanka ku furto wararku waxa ay tilmaamayaan in xiisad ay ka dhalan karto halkaasi taasi oo guud ahaanba salka ku haysa tegitaanka sultaanka iyo sidoo kale firdhiye ee halkaasi maadaama deegaankaasi xadka uu ku yaala isla markaana Puntland ay maamusho sidoo kalena inta ugu badan Puntland ay gacanta ku haysa hase ahaatee waxa la tilmaamayaa in waqooyi bari iyaguna ay deegaankaasi aaga ka agdhow iyagu gacanta ku hayaan isla markaana ciidamadoodu ay ku sugan yihiin dhawaana ay isku farasaareen ciidamo ka socda Puntland iyo sidoo kale kuwa ka socda maamulka waqooyi bari aagaasi fadhiga Sultan Saciid iyo sidoo kale firdhiya ayaa la tilmaamayaa inuu daaran yahay ujeedooyin kala duwan oo gobolada Sanaag iyo sidoo kale Sool qotoma ama ku saabsan ama ku qotoma waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba arrimahaasi ay dhinacyadu iska wareysanayaan isla markaana sultaanka guud ee beesha warsangeli arrintaasi lagu wargeliyay wararku waxa ay tilmaamayaan in guud ahaanba dhinacyadu ay si weyn u gorfeynayaan xaaladaha siyaasadeed ee isku gudban ee ka jira deegaanku waxa uu sultaanka maalin dhaweyd si bareera u sheegay in beeshiisu guud ahaanba ay sameynayso wax waliba oo markaasi lagu xaqiijinayo amniga gobolka Sanaag waxaana uu sheegay in gobolka Sanaag uusan ahayn furun dagaal oo ay dhinacyo kala duwan isku haysan doonaan waxa kale oo hoosta ka xariiqay in beesha warsangeli kaliya ayaha gobolkaasi ay ka talinaysa waxa ugu muhiimsanna ay taasi tahay waxay u muuqanaysaa in si guud ah uu dulmaray in ayahoodu ay ka tashteen beesha warsangeli isla markaana ay awoodooda isugu geynayaan gobolka waqooyi bari ama ismaamulka waqooyi bari oo ay madaxweyne ku xigeen hadda ka yihiin beesha dhulbahantana ay ka tahay madaxweynaha waxaa la tilmaamayaa
in awood qaybsigu uu suuro geliyey in garabyada siyaasadeed ee isku haya halkaasi ay iyaguna siyaabooyin kala duwan arrintaasi ay uga hadlaan isla markaana xiisadu ay meel dheer gaartay wararku waxay tilmaamayaan in xiisad fogaatay oo aad u daran ay halkaasi ka jirta isla markaana garabyo abaabulan oo Puntland ay ku jirta ayaa wararku tilmaamayaan inay isku dayayaan in la baajiyo kulanka suldaanka iyo sidoo kale madaxweyne Firdhiye dhex mari doono waxaana la tilmaamayaa adduun lacageed oo tira beel arrintaasi inay ku bixinaysa Puntland baajinta qorshahaasi wararku waxay tilmaamayaan in Somaliland qudheedu ay isku dayayso qorshahaasi walow aysan u dhoweyn aaga markaasi wada hadalladu ay ka dhacayaan waxaana la tilmaamayaa in iyada laftirkeedu ay abuurayaan jawi xasaasi ah kaasi oo guud ahaanba jawi dagaal u muuqan kara si markaasi loo hor istaago qorshaha ugaaska iyo sidoo kale ay ku kulmayaan madaxweyne Firdhiye isla markaana lagu hakiyo qorshe waliba waanan ka tarjumaynin rabitaanka dhinacyada siyaasadeed ama garabyada siyaasadeed ee isku haya deegaanka maalmihii ugu dambeeyey siyaabooyin kala duwan ayay garabyada isu hayeen waxaana la tilmaamayaa hadda guud ahaanba in aanan la helin jawi ku habboon qorshaha markaasi maalmihii ugu dambeeyey garabyadu ay ka shaqaynayeen Puntland dhankeedu waxa ay rajaynaysaa isla markaana ay qorsheynaysaa in la hakiyo dhaqdhaqaaqyada xadka isla markaana la yareeyo walow aysan aqoonsanayn labada maamul goboleed ee Puntland iyo Somaliland maamulka waqooyi bare haddana waxaa la tilmaamayaa bahda dhaqanku inay ku dadaalayaan guud ahaanba in la xaliyo wax waliba oo tabashooyin la xiriira isla markaana maamulku uu sidiisa ahaado markan waxaan eegaynaa dhanka iyo sanaag iyaguna wararka ka soo kordhaya Puntland waxa ay hadaftimo iyo sidoo kale badan ay ku daldalaysaa ciidamo tirabeela kuwaasi oo guud ahaanba ka kala socda qaybaha kala duwan ee ciidamada maamulka Puntland oo ay uga madax fiiqan yihiin ciidamada BMPF-ta kuwaasi oo aagaasi la geeyay waxa sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in ciidamo dadka deegaanka oo siyaabooyin kala duwan u abaabulan iyaguna in ay aagaasi ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan isla markaana ay sabaabulayaan qorshuhu wuxuu yahay inay iska difaacaan dhaqdhaqaaqyada military ee ciidamada Puntland ay ka wadaan aagaasi maadaama iyagu ay quldareynayaan dhanka iyo waqooyi bari waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba ay hor istaagayaan dhaqdhaqaaq waliba oo halkaasi maangal ay tahay inuu ka dhaco maalmihii ugu dambeeyey siyaabooyin kala duwan ayaa halkaasi xiisad uga jirtay waxaana la tilmaamayaa hadda guud ahaanba inay doonayaan in xal waara laga gaaro khilaafka halkaasi ka taagan waxaana wararku ay tilmaamayaan isla markaana ay sheegayaan in ujeedka ugu muhiimsan ee halkaasi ciidamada looga daabulayo ee garabyada Somaliland iyo sidoo kale Puntland iyo waqooyi baraba ay tahay in la gaaro dekada Laasqoray oo muhiim ah oo sanaag ku taala maadaama sanaag hadda ay isku haystaan maamulada Puntland Somaliland iyo sidoo kale waqooyi bari waxa maangal ah in dagaal lagu riiqmo halkaasi uu ka dhaco isla markaana garabyada siyaasadeed ee saddexda ay isku diraan balse dadka deegaanka ayaa la tilmaamayaa in arrintaasi ay ka fajigan yihiin isla markaana ay si weyn uga digtoon yihiin waxa halkaasi ka dhacaya